بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan ba allaha awoodda la dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo talaado ah 29 bisha December 2020 cudurka coronaviruska oo fayrasyo kala duwan waa uu ka jiraa dunida iyadoo qaybta labaadna ay ku faafayso meelo badan oo dunida ka mid ah dhinaca kalena tallaalada la bilaabay meelo badan sida Yurub iyo weliba Latin America wadamo kalena ay ku haminayaan tallaalka inay bilaabaan waxaa daba la filayaa adduunyaduna ay filaysaa tallaalada bilowday inay soo yarayn doonaan dhibaatada iyo culayska muddada sanadka ah oo cudurka coronavirusku ku hayo guud ahaanba bulshada caalamka balse waxaynu ku bilaabaynaa waddanka Brazil oo ka mid ah wadamada sida aadka cudurku uu saameynta ugu yeesha ahna dalka labaad ee ugu dhimasho badan dhinaca kalena dalka saddexaad ee ugu soo ridashada badan in madaxweyne ku-xigeenkooda oo lagu magacaabo Hamilton Mariau uu ku dhacay cudurka coronavirusku markii laga arkay madaxweyne ku-xigeenka xafiiskiisa saraakiil ka hadashay ayaa waxay sheegeen in cudurka madaxweynaha laga arkay kadibna uu isgooniyeeyey laakiin ma aanay sheegin calaamadaha laga arkay iyo heerkiisa caafimaad dhinaca kale waddanka Brazil maalmihii ugu dambeeyay waxaa jirta dhaleeceyn iyo eedo loo soo jeedinayo madaxweynaha waddankaasi iyo dabcan ku-xigeenkiisa iyo maamulayaasha dalka oo la leeyahay waqti uma aanay qaban xilliga la bilaabayo tallaalka cudurka coronaviruska maadaama uu si aada u aafeeyay dalka Brazil walow ay bilaabeen wadamo kale oo ku yaala regionka ama gobolka oo ah Latin America madaxweynaha waddankaasi Jair Bolsonaro oo isagoo cudurku uu ku dhacay bishii July ee sanadkan ayaa waxa uu horeba u sheegay inaanu istilaali doonin dhinaca kalena hadalka dadka iyo dhaleeceynta dheg jalaq uma siin isagoo sheegay waxaanu eegaynaa ka baaraandegaynaa ka fiirsanaynaa baaritaanna aan ku samaynaynaa shirkadaha kuwa ugu wanaagsan xagga waxtarka iyo xagga caafimaad ahaan iyo in la hubiyey tallaalka shirkadda marka aan u aragno inay quman tahana aan tallaalka ka iibsan doono laakiin waqti aanu u baahannahay laakiin maamulayaasha qaarkood iyo dadka amaba shacabka reer Brazil waxa ay qabaan in sabab loo sugaa aanay jirin mar haddii tiro fara badan ay ka dhimanayso maalin walba reer Brazil cudurka waxa uu uga dhacay guud ahaanba 7 milyan iyo 500 kun oo ruux waxaana uu ka dilay maalinkuu bilowday ilaa maalinka maanta 191 kun oo ruux eedo badan ayaa jiro hore loogu soo jeediyey madaxweynaha waddankaasi Jair Bolsonaro oo la yiri dalka iyo dadka waa dayacay maxaa yeelay marna ma aanu soo saarin amar guud oo ku saabsan dalka oo dhan in la xanibo laakiin gobdoomiyaasha gobolada qaar ayaa iyagu isxilqaamay walow uu kula dagaalamay maxaad dalka u xanibaysaan taasoo weliba keentay laba ka mid ah wasiiradii caafimaadka ee Brazil inay madaxweynaha is-afdhaafeen oo markaas shaqada ay ka wada tageen marka daba la fiiriyo Jair Bolsonaro waxa uu qabay inaan guryaha la joogin in dibadda loo soo baxo sankii afka inaan la xiran dadku inaanay kala fogaan waxaa la arkay isagoo dad badan ku dhex jiro sankii afka aan u xirnayn dhowr toddobaad ka hor taasina waxa ay keentay in markiiba maxkamad ku taalla waddanka Brazil ay soo saartay sharci ah madaxweyne Jair Bolsonaro dibadda marka uu joogo sanka iyo afka inuu xirto isla markaantiisna dadka uu ka fogaado arrimahaasi oo dhan waxaa loo arkayay dayacaad xoog leh oo ka timid dalka Brazil isagoo uu arkayay cudurka coronavirus inuu wax caadi ah iska yahay amaba hergab xumaaday UK oo ka mid ah wadamada sida aadka cudurku uu saameynta ugu yeeshay mawjadii koowaad iyo mawjada labaad ayaa waxaa la arkayay inay iminka aad ay u badan tahay gaar ahaan dhinaca England marka la fiiriyo shaqaalaha caafimaadku siday ka dhawaajiyeen maalmihii ugu dambeeyay gaadiidka gurmadka caafimaadka ayaa la arkayay inaanay nasanaynin hore iyo gadaal ay u socdeen iyagoo soo daabulaya dad badan oo cudurka coronaviruska qaaday taasoo la geenaya isbitaalada kala duwan xaalku ma aanu qumanayn iyadoo weliba shaqaalaha caafimaadka iyo qolyaha gurmadka ay sheegeen mararka qaar in ambalaasta aan dadka laga dejinaynin sababtoo ah isbitaalada la geeyay qaarkood oo aan lahayn sariiro markaasi bannaanaa dadka qaar ayaa ambalaasyada dhexdooda lagu daweynayay waxaanay wararkii ugu dambeeyay ay sheegeen haddii sidan kusii socoto inay dhici karto isbitaaladu dhammaanba inay buuxsamaan 24 milyan dad gaaraya ayaa waxay ku jiraan xanibaadda heerka afaraad taasoo dadku ay u badan yihiin marka la fiiriyo dhinaca koonfur bari ee England iyo weliba dhinaca bari ee England iyadoo tiradaasi 24 milyan ay u dhiganto boqolkiiba 43 dadka degan England oo dhan marka daba la fiiriyo qolyaha caafimaadka iyo qolyaha saynisyahanadu waxa ay ka digayaan xaalka aan qumanayn iyadoo la eegayo iminka heerka xanibaadda ee lagu jiro maalinta bariya ee 30 bisha taasoo go'aan kale la gaari karo in la sii balaariyo iyo in la qafiifiyo laakiin lama oga 24 saac ugu dambeeyay marka la fiiriyo guud ahaanba UK waxaa laga arkay 41,385 qof oo cudurka qaba iyo 357 ruux oo u dhimatay marka daba la fiiriyo guud ahaanba dadka cudurka u dhintay UK waxa ay gaarayaan 71,109 ruux
dhinaca kale waddanka China ayaa waxaa jirtay gabar ahaan jirtay garyaqaanad dhinaca kalena warbaahinta ka shaqayn jirtay oo lagu magacaabo Zhan in la maxkamadeeyay oo 4 sannadood oo xariga lagu xukumay. arrintaas ayaa waxaa ka biyo diiday garyaqaanka u doodaya oo sheegay in gabadha oo 37 jir ah xaaladeeda caafimaad aanay wanaagsaneen oo ay tahay qof aad u liidata oo itaalkeedu uu yaraaday kadib markii la xiray bishii May ee sanadkan cuntadan ay ka soomeeyeen dhowr bilood oo isku xigta. garyaqaankeedu waxa uu sheegayaa dambiyada loo haysta inaanay gelin. gabadhaas Zhan waxa markii ugu horeysay bishii February ay akhrisay qoraallo ku saabsan magaalada Wuhan xaaladeeda iyo weliba cudurka coronavirus-ka. kadibna waxay go'aansatay inay tagto magaalada Wuhan oo ay ka soo gudbiso warbixino iyo warar ku saabsan xogta ah dadku siday u nool yihiin cudurka coronavirus-ka iyo arrimo kale, taasoo si aad ay u adeegsadeen baraha bulshada. kadibna ay keentay maamulayaasha waddanka China inay arkeen gabadha iyo qolyo kale oo ka shaqeeya dhinaca warbaahinta reer China una dhashay dalkaas in tallaabo laga qaadi karo mar haddii arrimahaasi baahiyeen. taasi waxay keentay aqritaankii bishii May in xabsiga la dhigay, cuntadana ay ka soontay 4 sanana lagu xukumay, waalidiinteedna ay u arkaan in gabadhooda lagu gardarooday. waxaa kale oo jira wariyaal kale oo iyada lamid ah oo sidaasi oo kale xabsiga la dhigay. maamulayaasha dalka China ayaa la sheegay inaanay ogolayn wariyaasha noocaas u hadla iyo dadka kale u ololeeya dhinaca xuquuqda bani'aadamka. magaalada Wuhan ee asal ahaan uu cudurku ka bilowday ayaa dhakhtar lagu magacaabi jiray Dr. Li waxa uu ka arkay markii ugu horeysay cudurka iyo sida uu u faafo. kadibna waxa uu la wadaagay dhaqaatiir kale oo u sheegay xaalku inaanu wanaagsanayn, laakiin markii dambe ay la soo xiriireen ciidamada booliska oo sheegay dhaqaatiirtu inay afkooda ay suubsadaan amaba aanay ka hadlin arrinkan cudurka coronavirus-ka oo ay sheegayaan inuu faafo. laakiin Dr. Li aqritaankii bishii February ayuu u geeriyooday cudurka coronavirus-ka laftiisa uu haleelay kadib markii uu ka qaaday dad shakhsi ka mid ah dadkii uu markaas isagu u daweynayay. magaalada Wuhan ayaa waxaa la sheegay in xayawaanka ku nool ay dhici karto aadanaha inuu cudurka u gudbiyay. wadahadal ayaa jiray 10 bilood u socday maamulayaasha dalka China iyo laanta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO oo ahay dad khubaro oo saynisyahanna in loo diray magaalada Wuhan si ay baaritaan ugu soo sameeyaan guud ahaanba asalka cudurkan iyo xaalkiisu siduu yahay maadaama adduunyada uu ka yaabiyay. 10 bilood kadib ayay China ogolaatay. bisha Janaawarina waxaa la filayaa 10 saynisyahano caalami ah inay tagaan dalka China gaar ahaan magaalada Wuhan. mid ka mid ah saynisyahanada u dhashay Jarmalka ayaa waxa uu yiri anagu uma soconno China iyo waddan kale inaanu eedeyno, laakiin waxaan u soconnaa bal inaan wax ka ogaan karno haddii suurtagal tahay qaabka iyo sida cudurkani uu ku bilowday, iyadoo la sheegay suuq weyn oo xayawaanka oo ku yaala magaalada Wuhan in cudurkan laga arkay. laakiin maamulayaasha China iyaga laftooda waxay qabaan cudurkani inuu asal ahaan dibadda uga yimid oo iyaga aanu ka bilaabanin. marka daba la fiiriyo guud ahaanba adduunyadu sanad ay la daalaa-dhacaysa cudurka coronavirus-ka. dad aad u fara badan oo malaayiin ah ayaa cudurku uu ku dhacay. waxaa dhinaca kale cudurka ka bogsooda markii uu ku dhacay 45 milyan iyo 900 oo kun oo ruux. dadka cudurka uga dhintay guud ahaanba dunida waa coronavirus-ka waxay kor u dhaafeen 1 milyan iyo 770 kun oo ruux. iyadoo haddaba tallaaladii ay bilowdeen, fayraysyo cusubna ay jiraan meelaha qaar ayna sii fidayaan, ayaan la ogeyn xaalku sida uu noqon doono guud ahaanba, balse looba jooge sanadka dhalashadiisa 2021 iyo xaalku sida uu noqdo. marka haddaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronavirus-ka waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK. xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton, halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmed Barqadle iyo weliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka haddaad diraysidii haddii lagu keenayo intaba. ganacsade Axmed Barqadle waxaa kaloo uu bulshada u hayaa guud ahaanba taleefanada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyey iyo cunooyinka kala duwan, waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949512877. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida, waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan, iyagoo aan iloobay in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badina nadaafadana aan ku dadaalno. maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus-ka oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus. maasha Allah.